maxkamadda ugu sareysa ee dalka ayaa maanta go'aankii kama dambaysta ahaa waxa ay ka gaartay eedeysana Sayid Cali Macalin Daawud oo horay u gubay xaaskiisa. Maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta kiiskan soo gabagabaysay waxayna diiday dhammaan racfaankii qareenadii u doodayay Sayid Cali Macalin Daawud ay u soo gudbiyeen maxkamadda sare ee dalka. Garyaqaan Baashi Yuusuf Axmed oo ah gudoomiyaha ugu sareeya ee maxkamadda dalka ayaa waxa uu akhriyay xukunka ugu dambeeya Sayid Cali Macalin Daawud iyo waxa uu noqonayo xukunkiisa isagoo sheegay in Sayid Cali Macalin Daawud ay ku xukumeen maxkamadaha dalka ugu dambeeyna iyaga ay ku raaceen maxkamadahaasi toogasho ama qisaastii Luul Cabdilcasiis. Kiiskan Luul Cabdilcasiis ayaa waxa uu soo bilaabmay bilowgii sanadkan waxaana ninkan lagu magacaabo Sayid Cali Macalin Daawud oo ku eedeysnaa in uu gubay xaaskiisa waliba si bareer ah. Sayid Cali Macalin Daawud ayaa markii uu falkan geystay waxa uu isaga baxsaday magaalada Muqdisho oo uu falkan ka dhacay wuxuuna aaday gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ugu dambeyn waxa halkaas ka soo qabtay ciidanka maamulka Galmudug oo baadagoob ugu jiray Sayid Cali Macalin Daawud markii uu ka baxsaday magaalada Muqdisho. Haddaba kiiskan maanta la soo gabagabeeyay waxa daba socda arrin kale oo ku aadan in caruurtii ay dhashay Luul Cabdilcasiis ilaaha u naxariistay awowgooda uu sheegayo in ninkan lagu magacaabo Sayid Cali Macalin Daawud aan la xukumi karin inta caruurtiisa uu u helayo xaqi ay lahaayeen. Ninkan ayaa waxa uu ku doodayaa in caruurtiisa ay dhibano u yihiin Sayid Cali Macalin Daawud hooyadoodna uu dilay iyaguna uu dhaawac soo gaaray. Waxa uu sheegay ninkan in aan la dili karin isaga oo amar laga qaadan maxkamadana aysan hal dhinac u rarnaanin oo Luul Cabdilcasiis reerkeeda oo kaliya aysan u xukumin Sayid Cali Macalin Daawud. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Marka ugu horeysa waa idin salaamay salaan kadib anigoo ah Maxamed Cabdullaahi Warsame dhalayna Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi ilmaha yar yarka Luul Cabdilcasiis ay dhashay awowgood ah maxkamadda sare ee dalku dokumentigii waa iga qaban weysay wax macaamila waa ila sameyn weysay xukunkii xaqa ilaahay waa diiday marka waxaan u sheegaynaa waxa la leeyahay wixii arrimaha ku shuqul leh ama caalamka inaanu ku dulmanahay haddaan ahay aabbaha dhalay Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi ilmaha yaryarka ah ee Luul Cabdilcasiisna aan awowwaha u ahay sharciga islaamka wuxuu ogol yahay ayaan ogolahay ma ogoli in ilmaha ninna hooyadoo dilo ninna xaqoodii u diido ma ogoli marnaba ma ogoli ma qaadan karo marka maxkamadda sare dokumentigaygii waa laga diiday kiiskan waxaan awowaan u ahay ilmaha wiilkayga dhalay dokumentigii aan qiimka ku ahaana waa laga diiday wuxuu ahaa inaan u helo sharciga islaamka ilmaha waxay yeelanayaan in laga qayb geliyo oo ilmaha laga tixgeliyo haddii la gaarsiinayo markay qaangaar noqdaan iyo haddii wax xugun u dhacayo marka arrintaasi ma dhicin maya ma ahan sax anigu diyo ma qaadan karo dhiigga ma lihi anigu laakiin ilmahan leeyahay. Kiiskan maanta la soo gabagabeeyay ayaa waxa uu soo jiitamayay tan iyo bilowgii sanadkan maxkamadda ayaana maanta go'aan ka gaartay waa maxkamadda ugu sareysa ee dalka waxaana la rajeynayaa ama la filayaa in ninkan lagu fulin doono waa Sayid Cali Macalin Daawud xukunkii maxkamadaha ay isku raaceen ee ahaa dilka toogasho.